ninkaasna nin dambiile ah waaye in maxaa la yidhaha maxkamad la soo saaro oo inta dhibaato oo u geystay mahadlaha oo gamadka ku jiro oo godka ku dhex jiro in waxaa la yidhahdaa laga soo saaro oo shacabka hortiisa lagu maxkamadeeyo wixii xaq shacabka oo dhibaatada oo u geystay 4 sano oo farmaajo oo la joogay iyo inta oo qadar iyo waxaa la yidhahdaa dowladaha shisheeye oo u shaqeeyay ninkaas in shacbiga Soomaaliyeed ay waxaa la yidhahdaa hortooda lagu maxkamadeeyo midda kale farmaajo asiga waxaa la yidhahdaa shaqadiisa ma ahan waqtigiisa waa dhamaayay aragtidayda haddii aan soo koobo ra'iisul wasaaraha xaq ay u leeyahay inuu waxaa la yidhahdaa xil ka qaado sababtoo ah mas'uulka oo xukuumadda ugu sareeyo haddii madaxweynaha laga reebo asiga waaye xilka qaadistiisa xil qaadis oo waajibiyan ah waaye waxaan u arkaa waa arrin nasiib darra laba waraaq isku soo horjeeda inay maanta laba qofood oo mas'uul ah inay yiraahdeen qofna yiraahdo xilkan ka qaado qofna yiraahdo xilkan lagama qaadi karo waa dhacdo nagu cusub Soomaaliya ee waa ku cusub taaway marka waxaan dhihi lahaa arrintaasi waa arrin fool xun oo wuxuushnima in saas loo dhaqmo ilamayn aniga waxa ila gudbeeneed ra'iisul wasaaraha in loo daayo sababtoo ah waa ninka kaliya maanta loo xil saaray la yiri adaa dalka maanta hogaaminaysid wax maanta shalay meesha wax laga keenay wax walba Soomaali waa ogtahay meesha dhaxda u shaqeeyo ra'iisul wasaaraha waa ka qabtay maanta in la yiraahdo dib loo celinaa waxani ila fiican ma iyadoo door wallahi wax isku soo beeg horto wax walba xaq Ilaahay ayay ka qorin horto wax walba waa dhacay Ilaahay xaqiisa ay ka qoran yihiin maadaama hadda kiiska igraan oo meesha yimid oo ra'iisul wasaarihii oo shalay yiri oo media ka hadlay oo sheegay yiri ana ballan qaadayo cadaalad inaan u sameeyo waxay ahayd in loo dhaafeed maba ahaanba in laga daba shaqeeyo sababtoo ah iska daba qasha doo bilowdo waxa imaanayso wixii Soomaaliya shalay ay higsanaysan maaha inay dhaxda inay waka baxaan ay burburaan mana la qabato marka aniga hadda aniga marka waxaan leeyahay talahaan waxaan soo jeedinaa madaxweynaha inuu u daayo ra'iisul wasaaraha fikirkaas aan qaba anigu maya magacyal meen shalay wax shalay loo dhiibay wax sax ay ayeen laakiin ninka u maleeyay magacyal maahan ra'iisul wasaaraha awood u leeyahay inuu xilka inuu qof inuu waka qaadi karo sababtoo ah shalay markii la iska qabsaday maxaa loogu dhiibay sig xilka waraaqda ra'iisul wasaaraha ayaa saxsan waa fikirka aniga aan qabo waxay ku saxsan tahay waxa waaye meesha loo socdo dhan waa la ogyahay gabadhan inay cadaalad hesho loo baahan yahay igraan aniga shacabka daanna waa taageersanahay waa faadano waana garab taaganahay waddanka inuu hor u socdaan rabnaa ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa dalka doorasho inuu gaarsiiyo gabadha kiiskeedana inaan laga harin meel cad waa in la saaro salaam calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dabcan su'aashaada hor u sii galo dabcan waxaan leeyahay insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ayantaan qalbiga ku heysay in macna doorasho ay dhacdo waddankan macna horumar u hiigsado marka waxaan dhihi karaa insha Allah dabcan waqti hadarkan dabcan la joogo ma aan munaasib ma ahan in macna warqado soo saaray iyo khilaaf iyo marka wax macquul ma ahan haddana shacabka Soomaaliyeed dabcan ummadda Soomaaliyeed meel walba caalamka ka joogto munaasib ma aha in saacadan ra'iisul wasaaraha iyo dabcan madaxweynaha in isku qabtaan wax dastuuri ah wax iska macruuf ah marka macna munaasib ma baahan dhigi karaan taas aniga kan dhig gaashaan dhig iyo wasiirka amniga in macna ay xaliyaan dabcan munaasib ma aha in dabcan saacadan ra'iisul wasaaraha iyo in madaxweynaha isku qabsadaan sababtoo ah dabcan waxaan qiyaasti kartaa in ra'iisul wasaaraha arinta in soo gaarto qalad ay ahayd maxay waxa loo baahnay amniga jiro waxa jiro aan dhahay dabcan saraakiil ayaa jirto munaasib ma in marka hore waxa loo baahnay barnaamijka dabcan maadaama hay'addan masuud iyo barnaamijkan kiis ikraan macna gudaha ugu leedahay ayada macna qaabilsan tahay in arintaas marka waxa loo baahan yahay in arintaas ay ayada gudaha u gasho laakiin hadda wixii waaba dhacdaba ra'iisul wasaaraha soo galay warqado soo saaray asoo xigsanayo qodobka dabcan dastuurka 97 ilaa 100 marka dabcan waxaan dhihi karaa ra'iisul wasaaraha xaq ayuu u leeyahay maxay barqacad ayaa madaxweynaha ku wareejiyay xilka marka waxaan leenahay ra'iisul wasaaraha waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed nahanay waxaan ku leenahay insha Allah ka shaqeey doorasho dabcan la wada siman yahay oo xor iyo xalaal ah ummadda Soomaaliyeed indhaha ku weesaa waan ku garab taaganahay keep going aan ku leenahay hore u soco insha Allah ra'iisul wasaaraha waxaan ku leenahay insha Allah had iyo jeer waxaan ku leenahay insha Allah ka shaqeey cadaalad ikraam insha Allah hada cadaalad ummadda Soomaaliyeedna kan aqoonyahanka barkan professorka cadaalad hay helo madaxweynaha faran u diray madaxweynaha waxaan leeyahay xaq ayaa u leeyahay madaxweyne in dabcan wixii farada ka hadasho laakiin ra'iisul wasaaraha qodobka 97 ilaa qodobka 100 ayuu dabcan dastuurka adeegsanay marka waxaan leeyahay insha Allah doorashada dabcan hala suurta geliyo ummadda Soomaaliyeed cadaalad laga shaqeeyo waxaan leeyahay insha Allah taasaan kugu baraajinaa assalaamu calaykum wa rahmatullah arrimahan hadda socdo
oo kiiska ikraan tahliil waa runtii waa arrin siyaasadeed waxay ku maqan tahay in anugu haddaan laa ma sheegi karno dadkuna hadda wuxuu u badan yahay inay dhimatay laakiin madaxdii niisa xukuntay ikraan keliya in lagu eedeeya maahan ikraan keliya in lagu eedeeya maahan waxaa maqan 7,000 iyo siyaada 7,000 oo wiil oo siyaada oo aniga qaaraan dhalay ay ku dhinteen weli wax dawladda ay ka soo shay qaadayso ama wax ka soo baxaya odagaan cabaaday arrintiisa la xalliyo kama maqlin marka intaas u soo gudbo mas'uuliyiin ayaga noo ah oo heerka madaxweynaha saa mas'uulka waddanka midda ninka la yiraahdo rooble xilna cid ka maqaadi karo wareegtadan waxa iska leh taliyaha ciidamada ahna madaxweynaha dalka Soomaaliya asaana wax magacaabo asigaana maartay wax rido rooble waxa lagu wareejiyay doorashada amnigeeda inuu sugo ma ahayna amniga qaranka Soomaaliyeed looma dhiibin waxa isku soo beegay waa maartay arrimo siyaasadeed dad baa ku hoos jira meeshan ra'iisul wasaaraha waa la hoos joogaa mabda qaranka amniga Soomaaliyeedna madaxweynaha xilka ka saaran taliyaha sirdoonka ah ee Soomaaliya wuxuu la shaqeeyaa talada madaxweynuhu ku shaqeeyaa ma aan talo wasiir kuma shaqeeyo talo madaxweynuhu ku shaqeeyaa dalkana ayaga hogaamiyo ayagana ka sugeynaa wanaag in gabadhaasna haday maartay dhimatana waa soo sheegi lahaayeen nimanka dhiiraha niisa ee sirdoonka ah ma yeelay wixii dhinta waa soo sheegaan waxaan wax afduuba waa hadda oo dad ku hoos nool dawladda ku hoos nool dad ay maartay ku carqaladeynayaan dawladda ee u egtaa aniga aragtida ahaanteeda